soo dhawaada mar kale khiyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan qodobada aan idinkugu hayo tabintan waxaa kamid ah dowladda Iran ayaa waxa ay shuruud ku xirtay wada hadal Mareykanka ay la gasho oo ku saabsan in heshiiska dagaalada gobolka Bariga Dhexe lagu soo afjaro dood culus ayaa caawa ka taagan gobolka Bariga Dhexe kadib markii Trump uu soo gudbiyay hindise cusub oo ku saabsan in wada xaajoodka dagaalka lagu soo gabagabeeyo maxay dowladda Iran doonaysaa wada hadalladan maxaa hadda loogu arkayaa in ay ka gadisan yihiin kuwii hore Tehran waxa ay banaanka soo dhigtay waxa ka muuqanaya dabacsanaan hore marka la fiiriyo sida marka hore xaaladdu ay ahayd warbixin gaar oo caawa ku saabsan juhdi iyo dadaallada diblomaasiyadeed oo gobolka Bariga Dhexe ka socda ayaan barnaamijkan kugula wadaagaya qodobada kale aan idin hayana waxa kamid ah dhinaca gobolka Bariga Dhexe marka aad eegto madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa dabar lagu xiray kaas oo ku saabsan xiisada dagaalka ee gobolka Bariga Dhexe Trump waxa uu weerar ku qaaday xubno ka tirsan Congress-ka iyo waliba xisbiga dimuqraadiga waxana uu yiri waxay doonayaan si ka bedelan danaha qaranka inay ku wada gaarka ah ka faa'iideystaan Trump muxuu isku hadlaynayaa markan suuragal sama tahay tallaabada ay qaadeen Congress-ka Mareykanku inay noqon karayso mid Trump caqabad weyn ku noqoto marka la fiiriyo dagaalada gobolkaasi ciidamada badda ee dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran waxay ku dhawaaqeen goordhow in ay weerar ku qaadeen markab dagaal oo Mareykan ah kaas oo ku sugnaa meel ku dhow xeebaha wadanka Oman waxay ku tilmaameen tallaabadan in ay tahay mid la xiriirta arinta ay ku difaacayaan madaxbanaanida qarankooda iyo wadajirka guud ee nabadda ay doonayaan inay ku xaqiijiyaan gudaha wadankaasi warbixin gaar oo ay qortay wakaaladda Noor News ee laga leeyahay wadanka Isutaga Imaaraadka oo xiganaysa khubaro sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka ayaan ku fiirinayaa warbixintan dhinaca wadanka Iran iyo waliba dadaalada diblomaasiyadda intaanan gelin dhaqdhaqaaqa dhinaca badda ka dhacay caawa iyo waliba tallaabooyin la soo warinayo in saacadihii la soo dhaafay ay dhaceen wakaaladda lagu magacaabo Noor News ee laga leeyahay wadanka Isutaga wadanka la yiraahdo Iran isla markaana gacan saar la leh ee dowladda ayaa waxa ay maanta tabisay in ciidamada baddu ay sheegeen waa Iran in ay weerar ku qaadeen markab Mareykanku uu leeyahay oo marayay meel ku dhow xeebaha wadanka Oman ujeedada weerarkan ayaa lagu xaqiijiyay in ay daba socoto in laga jawaabo tallaabooyin Mareykanku ay qaadayeen oo muujinayay in la naafeeyo ciidamada badda gaar ahaan adeegyadooda isgaarsiinta tallaabada cusub ayaa lagu qaaday markabkan waxay sidoo kale sheegeen inay ahayd goobta weerarka uu ka dhacay xarunta taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee howlgalka ka fulinaya xeebaha wadankaasi Iran dhaqdhaqaaqyada dagaalka iyo xiisada sii kordhaysa ayaa daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa isbedeli karaysa dhinaca kale Pentagon-ku kama aanu jawaabin wali sheegashada wadanka Iran ee ku saabsan in ay weerareen markab ciidamada Mareykanku ay leeyihiin ee halkaasi marayay in ka badan 60 markab oo ah kuwa dagaalka kuwa burburiyaala iyo kuwa diyaaradaha xambaara oo dowladda Mareykanku ay leedahay ayaa ku hareeraysan wadanka Iran ujeedaduna waxay tahay in xiisada gobolka Bariga Dhexe halkaasi ka taagan Mareykanku uu lib ka keeno iyadoo cunaqabateyn dhaqaale tii ugu adkayd lagu sameynayo wadankaasi Iran maalmihii ugu dambeeyay Mareykanka ayaa qaadaya tallaabooyin kala duwan oo ka dhacaya koonfurta wadankaasi waa Iran gaar ahaan jasiiradaha Qasham Bandar Abbas iyo Sirik halkaasi oo la sheegay in ay yihiin dowladda Iran kuwa ka jawaabayay tan iyo wixii Mareykanku ka dambeeyay markii howlgalladaasi uu bilaabay jawaab dowladda Iran ay ka bixisay weerar lagu qaaday Qasham ayaa waxa uu sababay burbur xoog leh oo toddobaadkan soo gaaray wadanka Kuwait oo kamid ah dalalka Mareykanka uu ku leeyahay saldhigyada dhinaca militariga weerarkaasi waxaa la sheegay inuu ahaa kii ugu qasaaraha badnaa ee maalin kaliya saameyn ku yeesha wadamada Carabta ilaa iyo 63 qof ayaa dhaawacmay sida wasaaradda caafimaadka ee Kuwait ay ku sheegtay weerarkii lagu qaaday toddobaadkan hal qof oo dhalashay Hindiya haystana waa uu geeriyooday arrimaha diblomaasiyadda haddii aan u soo laabto
dalka Iran ayaa waxa ay shardi ku xireen heshiis ay la galaan dowladda Mareykanka kaas oo noqonaya mid ku meel gaar ah oo la doonayo in lagu soo iibiyo colaadda ka taagan gobolka oo muddada dheer taagnayd isla markaana dadaalada diblomaasiyadda xal badan loogu jiray war ka soo baxay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iran ayaa waxa uu ku tilmaamay in wada xaajoodku uu noqon karayo mid miro dhala oo dowladda Iran ay luqad fiican wax ku sheegayso haddii boqolkiiba 50 lacagaha bilyaanka dollara ee adduunka uga xayiran loo soo daayo waa doodii ugu adkayd oo dowladda Iran ay banaanka keento tan iyo markii Mareykanku ay xal ka raadinayeen arrimaha gobolka bariga dhexe dhinaca kale dowladda Iran ayaa caawa loo gudbiyay hindise ka yimid dhinaca Mareykanka oo la soo mariyay dhinacyada gacan saarka la leh ee dalkaasi isla markaana ka shaqeynaya wada xaajoodka nabadda oo Pakistan ay ugu horeyso waxyaabaha dowladda Iran laga doonayo ayaa la sheegay in hadda khubaro gaar ah oo arrimaha militariga diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah bartay ee Iran ay si gaar ah u darsayaan iyo kuwa kale oo sharci yaqaan ah sida warbaahinta kala duwan ee gobolka bariga dhexe ay ka jawaabayso ama ay arintan ku tabinayaan caawa dhinaca kale ee khubarada qaar oo dowladda Iran waxay tilmaameen in hindise kasta heshiis kasta oo lala galo dowladda Iran Mareykanku ay la gasho noqonayo mid si weyn looga fiirsaday oo aanu jiri doonin arrin lagu degdego laba sheega waqti kama dambaysa oo loo qabtay dowladda Iran oo ku saabsan colaadda gobolkaasi bariga dhexe in lagu gabagabeynayo si loo soo afmeero mashaqada iyo mashaakilka taagan ee colaaddu ay salka u tahay sida ay ku waramayaan qaar ka mid ah warbaahinta gobolka bariga dhexe caawa waxa uu khilaafaad xoog leh mar kale soo kala dhaxgalay hogaamiyaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo waliba saaxiibkiisa dagaalka gobolka bariga dhexe Benjamin Netanyahu kadib markii Trump uu si cad u sheegay khilaafka colaadda gobolka bariga dhexe in uu doonayo in uu ku soo gabagabeeyo miiska wada xaajoodka iyo nabadda Netanyahu ayaa ku doodaya in aan la joogin xilligii seetada loo dheeray lahaa dowladda Iran isla markaana loo baahan yahay xal kama dambaysa intii ay laga gaari lahaa dagaal in si degdega lagu galo oo Iran hadda ay tahay mid carcar leh oo hub iyo ciidan ku filan haysata isla markaana nuclear-ka uu noqonayo mid banaanka yaala ilaa iyo hadda ma jiraan war rasmi ah oo dhinacyadan ay si gaar ah uga soo baxay laakiin majalada Mareykanka ee Axios la yiraahdo ayaa si weyn arrintan caawa u qaada dhigaysa oo tilmaamaysa marka la fiiriyo xiisadda meesha ay taagan tahay iyo waliba arrintan holcaysa inay tahay mid aan si degdega loo gabagabayn karin Trump waxa uu doonayaa colaadda in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo Netanyahu waxa uu doonayaa in aan si degdega colaaddaasi looga bixin oo mar kale weerar lagu qaado dalka Iran madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale weerar ku qaaday xubno ka tirsan Congress-ka Mareykanka iyo waliba dhowr xubnood oo jamhuuri ah kuwaas oo soo jeediyay in la seeteeyo Trump in weerar kale uu ku qaado wadanka Iran si gaar ah Trump waxa uu dhaliil ugu jeediyay xisbiga dimuqraadiga ee sida weyn uga soo horjeeda xisbigiisa jamhuuriga ee talada wadanka Mareykanku ay ku loolamaan waxa uu tilmaamay Trump isagoo bartiisa through social ku qoray qoraal gaar ah arrinta Iran iyo waliba waxa hadda ay ka shaqeynayaan Congress-ku ma aha buu leeyahay kuwa u wanaagsan xaaladda Mareykanka mana aha xilligii la dabri lahaa ciidamadeena waxa uu si gaar ah u dhaliilay dimuqraadiga uu ku eedeeyay in ay danaha qaranka aanay eegayn waa Mareykanka balse ay eegayaan oo kaliya danahooda gaarka ah waa doodii ugu adkayd ee Trump uu si dhaba ugu weeraro xubnahan iyadoo dhinacan ay doonayaan in seeta iyo dabar lagu qabto Trump aanu mar dambe dagaal degdega ku qaadin wadanka Iran waxyaabaha sida gaarka loo eegayo waxaa ka mid ah arrinta nuclear-ka ee dalka Iran oo Mareykanku si weyn ugu raad joogay in aanay gacanta ku hayn uranium-ka halka dowladda Iran ay horay u diiday in ay arrimahaasi hirgeli karaan oo sida Trump iyo Mareykanku ay u rabaan ay wax u wadi karaan
ugu dambeyntii caawa Israa'iil ayaa la kulmaysa weerar xoog leh oo uga imaanaya dhinaca koonfurta wadankaasi Lebanon iyadoo xisbigu uu si ba'an u garaacayo deegaano kala duwan qaybo kamid ah talisada ciidamada nidaamka ayaa la sheegayaa inay waxyeello soo gaartay iyadoo halka loo yaqaan aaga Jaliilna la sheegaya dhawaqyada seerida digniinta in laga riday oo dadku loogu baaqay inay galaan goobo gabaada diyaaradaha dagaalka ee xisbiga ee ku shaqeeya nidaamka internetka ee fiber optiga ayaa waxay noqdeen kuwa si aada loo howlgelinayo iyadoo Israa'iilna dhowr meelood oo kala duwan duqeyn ka geysatay xilli wadaxaajood Washington ka dhacay oo noqonaya wareegga afraad lagu soo gabagabeynayo in dhinacyadu ay is-afgarad gaaraan saatee hogaamiyaha xisbiga Naciim Qaasim ayaa ku dhawaaqaya amaba sheegay aan idhaahdee in aanu ogolaan doonin natiijo kasta oo halkaasi badgaliyo